وحناهاي وهديك دوسيدا وحناهاي وانا معلمك وحناهاي وهديك دوسيدا. والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. maanta oo ay bishu tahay 4 bisha afraad 2020 waxaynu si toos ah u soo gudbin doonaa haddii Ilaahay raado casharkeena baynu gudbin doonaa. haddaba cutubkii isku dambeeya ama cutubka ugu dambeeya inoo harsanaa waxaa cutubka geometry-ga la yiraahdo ama cutubka saddexaad. waxaynu hore uga soo hadalnay dhidibada kaartis baynu hore uga soo hadalnay afartoodii jiho ayaynu hore uga soo hadalnay afartoodii waaxood. maanta haddii Ilaahay raado waxaynu ka bilaabi doonaa waxa la yiraahdo tiirada xariiqda. horta arday marka ugu horeysa waxaynu isla fahmi doonaa waxa la yiraahdo tiirada xariiqda ayaynu isla fahmi doonaa. qeexitaankeenu sameeyay tiirada xariiqdu ama tiirada xariiqda waa inta ay janjeersan tahay xariiqdu. xariiqdu inta ay janjeersan tahay ayaa la odhanayaa tiirada xariiqda. waayo tiirada waxaa lagu helaa waa isbedelka jooga oo loo qaybiyey isbedelka jiifa. maadaama aynu nidhi inta ay janjeersan tahay aynu nidhi waxaynu odhanaynaa waa isbedelka jooga oo loo qaybiyey isbedelka jiifa. haddaba tiirada xariiqda waxaa loo qaataa xarafka la yidhaahdo ma baa loo qaataa amba n baa loo qaataa tiirada xariiqda. waayo tiirada xariiqda waxay ku qotontaa laba qodob bay ku qotontaa sidaynu hore u soo marnay ee dhidibada kaartis waa dhidibka x iyo dhidibka y. haddaba labada barood barta hore waxaynu u qaadanaynaa qiimayaasha x1 iyo y1 baynu u qaadanaynaa. waayo halka barta dambana aynu u qaadanayno waxaynu u qaadanaynaa qiimayaasha x2 iyo y2. haddaba garaafkeena yare halkan ku yaala waxa uu muujinayaa maadaama aynu nidhi tiiradu waa isbedelka jooga oo loo qaybiyey isbedelka jiifa waxaynu odhanaynaa way isbedelka ku imanaya y1tayda iyo y2gayga ayaa noqonaya isbedelkii joogay ayuu noqonayaa iyo intaasi waa intii joogtay amba isbedelkii jooga ayuu noqonayaa. isbedelka ku imanaya x-tayda iyo x2gayga intaan halkaa ka dhaqaaqeen halkaa tegayana intaasina waxay noqonaysaa isbedelkii jiifa ayay noqonaysaa. oo halkaa markaan taaganahay intaas waxay noqonaysaa waa intii jooga ayay noqonaysaa. intana waxay noqonaysaa intaa markaan taaganahayna waxay noqonaysaa waa isbedelkii jiifa ayay noqonaysaa amba waa intii jiiftay. haddaba qodobka hore waxaynu ku soo sheegnay tiirada xariiqda waxaa loo qaataa xarafka n baa loo qaataa. xarafkii n tiirada markaan soo saarayo waa isbedelka jooga oo loo qaybiyey isbedelka jiifa. isbedelkii joogay wuxuu ku imanayaa waa y2 minus y1. isbedelkii jiifana wuxuu ku imanayaa waa x2 minus x1. markaa tiirada xariiqda waxaa lagu helayaa qaacidadan baa lagu helayaa tiirada xariiqda waxaa lagu helayaa waa y2 minus y1 divided by x2 minus x1. haddaba waxaynu isla eegi doonaa ardayay tusaalooyinkaynu isla eegi doonaa. waayo tusaalaha waxaa lagu yidhi xisaabi tiirada xariiqda marta barahan laba barood baa lagu siiyey. waxaynu hore u soo yaro sheegnay amba aynu dib ugu yaro noqonay darteennan hore waxaa loo qaadanayaa waa x1 iyo y1 baynu u qaadanay. darteenna dambana waxaynu u qaadanaynaa waa x2 iyo y2 baynu u qaadanaynaa. haddaba waxaynu isweydiinaynaa maxaa lagu siiyey se maxaa lagaa doonayaa. waayo marka koowaad waxaan odhanayaa siin baan odhanayaa maxaa lay siiyey. waxaan odhanayaa waxa lagu helaysiiyey markaan qorto ayaan xalkeedina raadinayaa. kani waxa weeyaan waa x1 waa 2 y1na waxa weeyaan waa 3 halka ay x2na tahay 6 ay tahay y2na ay tahay 8 ay tahay. labadan baroode hore waxaan u qaatay qiimayaashii x1 iyo y1. labadeeda baroode dambana waxaan u qaatay qiimayaashaydii x2 iyo y2 baan u qaatay. maxaa la weydiiyey tiiradii xariiqda la weydiiyey. tiirada xariiqda waxaa loo qaataa
waxaan oranayaa tiiradii xariiqda waxaa lagu helayaa waa y2 minus y1 divided by x2 minus x1. haddaba waad ku badbedelanaysaa y2-gii waa 8 y1-kaygina waa 3. waxaan oranayaa waa 8 minuskani waa kii qaacidada waa minus 3 divided by x2-gayga waxaan haystaa waa 6 x1-kaygina waxaan haystaa waa 2. markaa waxaan oranayaa waa 6 minus 2. labadayda sare waa soo kala goynayaayo tiiradaydu waxay leegtahay 8 baan oranayaa 3 ka gooyo waa 5. waayahay 4 6na waxaad ka goysaa 2 oo waxa weeyaan waa 4. halkaa markaad taagan tahay haddii ay isir wadaagaan isirka ay wadaagaan baad labada dhinacba u qaybinaysaa. haddii ayna wax isira wadaagin sida tusaaleheennan oo kalena waxba uma qaybina sida halkaasi baad kaga tegaysaa. waayo waxaan eegi doonaa tusaalahayga labaad. tusaalahayga labaad hadday uu ka duwan yahay tusaalahayga hore uu ka duwan yahay. tusaalahayga hore labadooduba waxay ahaayeen tirooyin togan bay ahaayeen. iminka barteeda hore waa tiro togan, barteeda dambana waxa weeyaan waa tiro 10. waxaan oranayaa siin maxaa lay siiyey. waayo siintaydaan haysta x1 waxaa lay siiyey 6 y1 oo waxaan haystaa 9 baan haystaa x2 waxaan haystaa minus 4 baan haystaa y2 na waxaan haystaa minus 11 baan haystaa. tiirada xariiqda waxaa lagu helayaa waa y2 minus y1 divided by x2 minus x1. y2-gayga waxaan haystaa waa minus 11. intaas waxay leegtahay waa minus 11. minuskaasi waa kii qaacidadoo waa minus 9 divided by waa minus 4 minus 6. minuskani waa kii qaacidada minuskana x2-gayga waxay sii wadatay minus 4 bay sii wadatay. waayo hadday markaad halkaa taagan tahay waxaad xasuusnaanaysaa amba aad maskaxda ku haynaysaa waxa weeyaan laba tiro oo isku calaamada waa la isku geeyaa. haddii ay wada balaas yihiin labadayda tiro waa la isku geynayaa. haddii ay wada minus yihiinna labadayda tiro haddii ay wada balaas yihiinna waa la isku geynayaa. calaamadoodana waa laga dhexaysiinayaa. iminka halkani waa minus 11 iyo minus 9 iyo minus 4 iyo minus 6. labadaa waa la isku geynayaa. calaamadoodiina waan ka dhexaysiinayaa. 11 baan oranayaa 9 geeyo waa minus 20 amba waa minus 20 divided by baan oranayaa labada minusna waan isku geynayaa iyo waa minus 10. arday markaan halkaa taaganahay waxaynu hore u soo baranay laba tiro oo isku calaamada haddii la isku qaybiyo waxa ka soo baxa balaas baa ka soo baxa. laba tiro oo kale calaamad duwan haddii la isku qaybiyana waxa ka soo baxaa negative amba calaamada 10 baa ka soo baxda. waxaan oranayaa balaasaan balaas u qaybinayaa. tiiradayda xariiqdu waxay leegtahay waa tiro togan amba waxa weeyaan waa balaas 2. eberkan iyo eberkan haddaad iyaga isku jirtid halkaa waxaa ka soo baxaya balaas 2. ardayga tusaalahayga saddexaad ee halkaa ka eegayo isaguna maxaan ku dhahdayey in yar buu kasii duwan yahay. kan labadayda barood ee dambe waxay ahaayeen tirooyin 10 bay ahaayeen. laakiin maanta tirooyinkayga labadayda barood ee hore ayaa ah tiro 10 ah. marka koowaad waxaa tidhahdaa siin baa odhanaysaa maxaa lay siiyey. siintayda x1 waxaad haysataa waa minus 3 ee y1 waxaad haysataa waa minus 6. halka x2 waxaad haysataa 7 baad haysataa y2 waxaad haysataa 8 baad haysataa. waxaan oranayaa tiirada xariiqda waxaa lagu helayaa waa y2 minus y1 divided by x2 minus x1. waan ku badbedelanayaa uun. waayo tiirada xariiqda waxaa lagu helayaa y2-gayga waxaan haystaa waa 8. ardayo halkaa markaad marisid waxaad u yara fiirsataa calaamadaha u fiirsa ay wataan. waayo calaamadu waa caqabada ugu weyn ee ku xidhisa weeyaan.
y2gayga waxaan haystaa waa waa a minuskaasi waa kii qaacidada y1taydu laakiin maxay wadataa minus bay wadataa amba waa -6 minuskani waa kii qaacidada minuskan kalena waxa weeyaan y1taydu calaamadii ay wadatay weeyaan intaa waxaad u qaybisaa x2gayga waxaan haystaa waa 7 calaamadaas waa calaamadii qaacidada weeyaan x1taydu laakiin iyadu waxay haysataa waa -3 ardayay halkaa markaa taagan tahay haddana waa inaad maskaxda ku haysaa xeerkii la odhan jiray bk3ik ee lagu shaqayn jiray xisaabfallada lagu shaqayn jiray waa inaad xasuusataa waxaan ka shaqaynayaa kan ma taabanaya intaa qoysku ku jirta ayuun baan ka shaqaynayaa tiiradii xariiqdu waxay leegtahay 8 ma taabanaya waa 8 minus oo minus lagu dhuftay waxa weeyaan waa balaas halkaasi waxa weeyaan waa balaasiis difaar bay 7ka sidiisaan u soo qaadanaya minus ku dhufo waa balaas minus oo minus lagu dhuftay waa balaas halkaasina waxa weeyaan waa balaas 3 hore waxaynu u soo marnay waxa la isku geeyaa waxa weeyaan waa labada tiro ee isku calaamada waa la isku geeyaa haddii ay calaamado kala duwan wataana waa la kala gooyaa iminka labadaydan sare waan isku soo geynayaa tiradii xariiqdu waxay leegtahay 8 6uge waa 14 saddex 7 waxaad u geysaa 3 oo waa 10 halkaasi markaa taagan tahay haddii ay wax isiro wadaagaan isirka ay wadaagaan baad u qaybinaysaa gaar ahaan wixii la odhan jiray isir weynaha ay wadaagaan way halkaa waxaad u qaybisaa laba u qaybi halkaa haddaan laba u qaybiyo waxa weeyaan waa 7 halkana haddii aan laba u qaybiyo waxa weeyaan waa 5 ardayo markaan ku leeyahay isirka ugu weyn baad u qaybinaysaa maaha inaad halkan tirada u qaybsanto onaad u qaybisid halkanna tiradii u qaybsanto aad u qaybisid laakiin waxaad eegaysaa labadaadan tirada labada dhinacba u qaybsanta ayaad eegaysaa waayo tusaalahayga ugu dambeeya aan kusoo gebagabeynayaa waxa weeyaan waa mid ay calaamadahoogu isku wada mid yihiin markaan leeyahay waa isku wada midna dhammaantood waxa weeyaan waa wada balaas tusaalahan hore waxaynu ku soo qaadanay labadayda baroodba waxay ahaayeen tirooyin 10 bay ahaayeen maantana waxa weeyaan waa tirooyin 10 weeyaan waxaan odhanayaa siin marka koowaad wixii la siiyey x1 waa la siiyey oo waa -10 waayay y1na waa la siiyey oo waa -8 x2 waa la siiyey oo waa -1 y2na waa la siiyey oo waa -2 haddaba halkaasi markaan taaganahay waxaan odhanayaa tiiradii xariiqda maxaa lagu helayaa tirada xariiqda waxaa lagu helayaa waa y2 minus y1 divided by x2 minus x1 y2gaagii waad haysataa y1na waad haysataa ku bedeloon haddaba y2gaygii waxaan haystaa waa -2 minuskaasi waa kii qaacidada y1tayduna maxay wadataa minus bay wadataa iyaduna waa -8 weeyaan divided by 2 divided by y2ga x2gaygu waa -1 minuskaasi waa kii qaacidada y1tayduna waxay wadataa waa -10 waayahay halkaa markaan taaganahay intaydan hore ma taabanayo ee waxaan soo fududaynayaa inta qowska ku jirta oo keliya taa ayaan soo fududaynayaa waayo halkaa haddii aan kasii yaraan baqaado waxaan odhanayaa tiiradii xariiqda waxaa lagu helayaa minuskaygan hore ma taabanaya waxaan odhanayaa waa -2 waayo minus oo lagu dhuftay minusna waxa weeyaan waa balaas minus oo lagu dhuftay minusna waxa weeyaan waa balaas halkaasina waa balaas 8 divided by -1ka isaga ma taabanayo tiradaydan hore ma taabanayo minus baan odhanayaa minus ku dhufo waa balaas halkaasina waxa weeyaan waa balaas 10
ardayda imika waxaan haystaa waa laba tiro oo kala calaamad duwan labadeeda tiro haddii ay kala calaamad duwan yihiin waan kala goynayaa calaamadda soo hadhasana waxaa go'aaminaya tiradeyda weyn ayaa go'aaminaysa waayo 8 baan odhanayaa waxaad ka goysaa 2 8 oo 2 laga gooyay waxa weeyaan waa 6 waayahay 10 waxaad ka goysaa 1 waa 9 labadeeda tiro waa 6 iyo 6 divided by 9 waxaan odhanayaa waxaad u qaybisaa isirka ugu weyn ee wadaagaan u qaybi dhinaca tiri baan u qaybinayaa dhinacana tiri baan u qaybinayaa marka intaydu waxay leedahay halkaa 3 u qaybiyo waa 2 halkana 3 u qaybiyo waxa weeyaan waa tiri isirka ugu weyn ee wadaagaan waxa weeyaan waa intaas waayo haddaba tirada xariiqda wixii wax laga weydiin karaa waxa weeyaan ardayo waa intaasiba wax laga weydiin karaa haddii aan soo yaro koobo aan soo yaro dulmaro horta marka koobaad waa inaad taqaanaa waxa la yidhaahdo tirada xariiqda waxaan kusoo sheegay tirada xariiqdu waa inta ay janjeersan tahay xariiqdu tirada xariiqda waxaa lagu helayaa waa isbedelka jooga oo loo qaybiyey isbedelka jiifa tirada xariiqda waxaa loo qaataa xarafka in baa loo qaataa labada barood ee aad haysatid barka hore waxaad u qaadanaysaa x1 iyo y1 barkaada dambana waxaad u qaadanaysaa x2 iyo y2 baad u qaadanaysaa haddaba garaafka yare wuxuu muujinayaa waa isbedelkii joogay oo loo qaybiyey isbedelka jiifa isbedelka jooga wuxuu ku imanayaa waa isbedelka ku imanaya y1 iyo y2 inta y1 laga tagay ilaa iyo y2 isbedelkaasi ku imanaya weeyaan isbedelka jiifana waxaa ku imanaya waa x2 ilaa x1 iyo x2 intaasiba iyaduna noqonaysaa tirada markaa waxaa lagu helayaa waa y2 minus 1 divided by x2 minus x1 intaasi waxa weeyaan waa inta wax lagaa weydiin karaa haddii tirada xariiqda lagaa weydiiyo intaasiba wax lagaa weydiinayaa haddaba ardayo ha u daymo la'aanin inaad cashirkaasi yaroo fiican aad uga bogatid intaasi baan kusoo koobayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi